iskii Bukhari ku jirana waxay ahayd midkiin inuu xaabo dhabarkiisa ku soo qaada ka khayr badan inuu dadka intuu wax weydiisto waxna la siiyo loona diido waayo marka bini aadam wax weydiisanaysid labadiiba way kugu jiraan ima in lagu siiyo ima in lagu diido laakiin mad gacan Bismillahir Rahmaanir Rahiim ugu rawaadin maxad celinayaa Maxamed iyo tiimkiisaba walaal barnaamijkan horta fikradiisa waxa ka dambaysa amba asaas u ah baahidii bulshadeena oo aad u korodhay dadkii masaakiinta haayo iyagu in fara badan ay baahidoodii sii siyaadayso marba marka ka dambaysa waxa jiray dadyo badan oo ku tiirsanay noloshoodu xagga dhismayaasha amba subaxda hore u kalihi jiray dadka oo taasoo moodeen bariyahan dambe iyaduna hakad fara badan ku yimiday horta waxay keentay qoysas fara badan baahidoodii xoog u korodhay marka baahidii bini'aadamkana qacanta bini'aadamka laguma dhargo oo qof kastaaba maanta hadii la yiraahdo qoys kasta xataa raashin ha loo dhigo ee kuma kafeynayso oo inta kuma koobnaanayso marka fikradan waxay ahayd inaan bal helno haba yaraato wax bulshadeena inta dib loogu celiyo lagu maalgeliyo dadna qofka markaad ku tiraahdo bishii waxaasan ku dhigay wixii uu qaban karayay ma qofku wuxuu xirfad u lahayn in la yiraahdo oo lagu maalgelinay laakiin wuxuu xirfad u lahaa marka lagu waa lagu sameeynaya oo shaqaysanaya qofkiina marka shaqadii markuu barto isaga de wixii Ilaahay u soo arsaaqay oo kasoo siiyay isaga ayaa helaya Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam mar walba uu dhiiri gelin jiray talagalay markii hore fikradan inay qofku bishii uu bixiyo $2 marka bishii markuu $2 bixiyo $2 wixii ka soo xaroodo hal qoys bishii inaan xooga saarno oo halka qoys in la sameeyo maalgelin loo sameeyo marka dadka ka qayb qaadan kara way badnaan karaan hadii marka tirada dadkii aan ugu talagalnay ay fara badato oo maanta qoys iyo lababa la yiraahdo bishii ha lagu maalgeliyo tirada dadku waxay ku xiran tahay inta qof ay ka qayb qaadanaysa barnaamijka laakiin lacagta xadigeedu yahay $2 waa bishii waayo week hadii la yiraahdo dadka qaar ma wada heli karaan laakiin bishii qof kastaba uu awoodi karaa inuu $2 uu ku soo maalgeliyo halkan iyo ka badanba dadka qaar badin teeleg baa bixiyay markii dadku bixiyeenna dhaqaalaha dukaanka lagu maalgeliyay qiimeynta teeleg ku qaaday horta walaal markii hore group aan sameynay groupkii markaan sameynay intii aan asxaab iyo macaarif ahayn iyo dadkii dhan wada sheegay groupkii markaan sameynay waxaan ku niri $2 baan bixinaynaa bishii $2 waxaan ku maalgelinaynaa hal qoys barnaamijkan uu sii socdo barnaamijkan dadka maalgelinaysan dad noocay noqonayaan kalama bishii baad hal qof maalgelinaysan mise ka badan walaalkaas waxay ku xiran tahay dadka ka qayb qaadanaya barnaamijka horta markii hore intaan fikrada aanan ku dhaqaaqin aan sameeyay waxaan soo sameeynay waraysi badan ma soo sameeyay waxaan soo sameeyay qoraal baan soo sameeyay dadka danyarta ah waxaan ugu soo talagalnay dadkan danyarta ah maxay qabsan karayaan marka qof walba wixii xirfadiisa ahayd ee uu qaban karayay baan soo qoray markaasaan soo diyaariyay in bal bishiiba hal qoys aan u sameeyo haddii barnaamijku inoo sii weynaado oo intaas aan filanayna in ka badan ay timaadana waxay noqonaysaa bishiiba 2 qoys inay baxaan way haddii mashruucan uu guuleysto shadii maxaa doonaysaa inaad maaragtay aad gaadhaan target muxuu yahay target hadafka ugu waxa weeyaan walaal horta in shaqada la barto ay dadkeenu inay shaqaystaan iyagu bartaan horta waa ugu weyn ta kale ee labaadna in cala la qalbi baahidii meesha taagneed la dabooli karo oo qoys kastaaba cilmihiisa intaan isleenahay ay iyagu wax la soo bixi karayaan iyagu dabari karayaan marka hadafka ugu weyn waxa weeyaan dadkeena masaakiinta ah ee danyarta ah ee baahiyaha kala duwan ay hayaan inay iyaguna bartaan inay wax qabsan karaan oo bini aadan mar walbana ayna gacanta wax ku hoos dhiganeen way shaadiye inta badan waxaatay quraanka macluumaad baatay barnaamijkeena oo kooban Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu dhiirigeliyay in aan dadka waxba la weydiisan oo qofku xoogiisa maaro haba yaraaday muddiga barnaamijka xadiista ku tacalluqday inuu qofku xoogsado inay in yar inoo soo jeediso Maxamed alayhi salaatu wasalaam baa inoo sheegay Nabi Maxamed wuxuu dhiirigelin jiray inta badan inay dadku wax qabsadaan oo ay shaqaystaan nin ansaariya maalin uu yimid nabiga asxaabta la fadhiyay alayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ku raahday gurigeyga wax baahi baa ka jirta nabigu wuxuu ku yiri markaa doon oo soo qaado waxa gurigaaga yaala marka ninkii weel buu keenay saxaabadii ag fadhiday wuxuu ku yiri iga iibsanaya nin kamid ah wuxuu yiraahday ana ka iibsanaya 1 dirham baan ka siisanaya taasoo ku dhimay yaa ka siyaadinaya 2 dirham iyagoo asxaabtana wuxuu ugu xiiseynayay waxa uu nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam iibinayo ninkii markii uu ku yiri inta wuxuu sameeyay ninkii inuu ku raahdo
haddaba orodoo kusoo iibso gudun kadibna xaabo ku doono xaabadaas sii iibi oo noloshaada kusii wado. xadiiskii bukhaari ku jirana waxay ahayd midkiin inuu xaabo dhabarkiisa kusoo qaadaa ka khayr badan inuu dadka intuu wax weydiisto waxna la siiyo loona diido. waayo markaad bini aadan wax weydiisanaysid labadiiba way kuugu jiraan, imaa in lagu siiyo imaa in lagu diido. laakiin aad gacantaada wax kula soo baxaysid xoogsanaysid dee wixii ilaahay kugu arsaaqay baad markaa ayaad adiguna wixii ilaahay kugu arsaaqay baad noloshaadii kusii dabaranaysa. asbaabtiina waad la timid oo ilaahay subxaana watacaala baad ku tala saaratay. marka mar walba xadiiskaas wuxuu inoo dhiirigelinayaa inay dadku wax qabsadaan.